Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Halkani waa Sahan Academy, hoyga barashada aqoonta iyo xirfadaha. Waa muuqaalkii shanaad ee trainingkan ama tababarkan aan ugu talagalnay ardada dhamaysatay dugsiyada sare, kuwa uu doonaya inay ku biiraan jaamacadda. Trainingkan ama tababarkan waxaan ugu talagalnay in markaasi ay noqdaan qofkan uu markaasi ku guuleysto takhasuska isaga ku habboon sidii markaa uu ku dooran lahaa. waana cashirka afaraad. waxaynu markaa kaga hadli doonaa sida loo qaato notiska macalinka, waxyaabaha uu sharxo, hababka markaa loo qaato ayaan markaa ku qaadaa dhigi doonaa. Marka hababka notiska loo qaato waxaan u kala qaadaynaa 3 nooc. cashirka marka inta uusan bilaabanin ka hor, waxyaabaha marka macalinka uu sheegay habka loo qaato, inta uu cashirka socdo iyo cashirka kadib notiska habka loo qaato. 3daas hab ayaan markaa u kala qaybin doonaa. cashirka ka hor qodobka koowaad, dib u akhri notiska cashirkii shalay macalinka uu dhigay. notiskii aad ka qortay dib u akhri adiga oo u diyaar garoobaya in aad isku xirtid ujeedada iyo nuxurka markaasi labada cashir ay xambaarsan yihiin. waxaad dib u akhrisaa notiskii cashirkii shalay adiga aad qaadatay, adiga oo u diyaar garoobaya in aad isku xirtid ujeedada iyo nuxurka ka dambeeya labada cashir ee kii shalay iyo kii maanta ay xambaarsan yihiin, sidii aad isugu xiri lahayd. qodobka labaad, ka hor cashirka qodobada loogu baahan yahay ardayga waxaa ka mid ah: akhri cashirka cusub ee maanta ka hor inta uusan macalinku akhrinin ama sharxin. adiga waxaa lagaa rabaa inaad akhriso cashirka cusub ee maanta macalinka uu markaasi keenay inta uusan macalinku akhrinin ama uusan sharxin ka horbo. markaas samey inaad akhriso oo indhaha aad mariso, adiga oo kaashanaya buugga manhajka ah ee laga dhigo maadada. muhiim ma ahan in aad fahanto dhammaan cashirka, muhiim maba ahanbo dhammaan macalinka inta uu sheegay oo dhan inaad markaa fahanto, muhiim ma ahan. marka ka hor cashirka qodobada looga baahan yahay ardayga si uu notiska u qorto waxaa ka mid ah: akhri cashirka cusub ee maanta ka hor inta uusan macalinku akhrin ama sharxin, adiga oo kaashanaya buugga manhajka ee markaa laga dhigo maadada. muhiimada ma ahan inaad wada fahanto dhammaan cashirka nuxurkiisa oo dhan. nuxurka inaad fahanto ayaa muhiim ah, cashirka oo dhan inaad wada fahanto muhiim ma ahan. xilliga casharku socdo, hababka loo qorto notiska ama inaad wax badan fahanto, waxyaabaha kuugu saacidi kara waxaa ka mid ah: qodobka koowaad, imow fasalka xilli hore si aad u hesho kuraas hore. kuraas hore si aad u hesho waxaad imaanaysaa jaamacadda xilli hore si kuraasta hore marka aad u fadhiisato. qodobka labaad, ka dheerow ama ka fogow wax walba oo carqalad ama mashquul kugu noqon kara. ka fogow wax walba oo adiga carqalad markaasi kugu noqon kara ama carqalad ku noqon kara waxbarashadaada ama xiisadaasi aad qaadanaysid, kugu markaasi dhibi kara ama mashquul kugu noqon kara oo mashquul kugu dhigi kara. ka fogow. sida waxaa ka mid ah taleefanada iyo wixii la mid ah, waxba inaad ka fogaato oo aad iska damiso ama silent iska saarto ayaa markaasi aad u fiican. qodobka saddexaad, xilliga cashirka uu socdo qodobada loogu baahan yahay ardayga waxaa ka mid ah: taariikhda maalinkaas ku qor buugga aad noodka maalintaas ku qoraysid. buuggaaga noodka waxyaabaha macalinka uu sharxaya aad ku qoraysid, taariikhda qaybta kore ee markaasi midig gaar ahaan ku qor. marka waxaa waaye qodob ka mid ah qodobada lagu yaqaano dadka markaasi aqoon-yahanada ah way taariikhda ay qoraan wax walba. waxa waaye wax u diiwaan gashan. qodobka afaraad, xilliga uu casharka socdo qodobada loogu baahan yahay ardayga waxaa ka mid ah: notiska ku qoro dhinac ka mid ah buugga aad ugu talagashay. buugga wuxuu leeyahay 2 bog. buugga adiga aad ugu talagashay ku qor notiska, yuusan noqonin mid markaasi qayb ka mid ah buuggan aad ku qorto, haddana buggii kale aad usii gudubto, haddana buggii aad usoo noqoto. yuu noqonin marka mid markaasi lagu wareera oo qof kale markaad u dhiibto uu ku wareero. marka notiska ku qoro dhinac ka mid ah buugga aad markaasi ugu talagashay in markaasi aad
ku qorto notiska xilliga casharka uu socdo qodobada looga baahan yahay ardayga si uu ugu guuleysto casharkaas uu wax badan u fahmo waxaa kamid ah isticmaal afkaaga hooyo luqadaada hooyo luqada adiga aad leedahay isticmaal af soomaaligaaga isticmaal sida adiga oo u sharxay qof kale oo kale luqadaada isticmaal oo waayo luqadaada waa waxaad fahmi kartid waa luqadaada isticmaal marka afkaaga hooyo luqadaada hooyo sida adiga oo u sharxay qof kale xilliga uu casharku socdo qodobada loogu baahan yahay ardayga waxaa kamid ah qodobka lixaad wuxuu noqon doonaa si gaar ah u calaamaday meelaha uu adeegsado macalinka ereyo ay kamid yihiin ereyo waxaa jiro macalinka uu adeegsado oo macalinka uu wax ka sheego meelahaas macalinka uu calaamadeeyey si gaar ah macalinka uu sheegay si gaar ah uu calaamaday tusaale ahaan macalinka cashir buu sharxayay wuxuu dhahay meeshan waa muhiim meeshaas marka inaad calaamaysato ayaa aad u fiican oo inaad wax badan ka fahantane aad markaasi wax badan aad qorato sidoo kale macalinka meelaha uu sida gaarka ah uu markaasi u calaamaday waxaa kamid ah waxyaabaha uu sheego waxaa kamid ah natiijadu waxay tahay wax buu soo sharxay soo sheegay natiijada aan ka leenahay waxay tahay yani nuxurka cashirka ayuu sheegaa meeshaas oo kalena waa inaad calaamaysaa waa wax aad u fiican waay waa notiska hawka loo qaato waay waxyaabaha kale ama meelaha macalinka marka wax uu sheego laga calaamadeeyo waxaa kamid ah si fiican ila soco meeshan wuxuu ku leeyahay haye meeshaan si fiican ila soco meeshaas waa in aad calaamadeysaa waa meelaha waxay kamid tahay markaasi notiska habka loo qaato ay kamid tahay haddii uu ku dhaho macalinka si fiican ila soco meeshan yani meeshaas calaamadey waaye oo yani faham guud ka qaado nuxurka cashirka waa yani muhiimada cashirka waxa uu xambaarsan yahay waa markaas oo kale hadduu dhaho meeshaas yani waadaas wixii ka dambeeyay waa inaad calaamaysataa so marka si gaar ah inaad u calaamadeysaa meelaha uu macalinka u adeegsado ereyada ay kamid yihiin waa muhiim meeshan natiijadu waxay tahay si fiican ila soco meeshan iyo nuxurka cashirku waa intaas oo dhan waa qodobka ugu muhiimsan waaye qodobada markaa hababka notiska loo qorto qodobka toddobaad xilliga cashirka uu socdo qodobada loogu baahan yahay ardayga waxaa kamid ah isticmaal sawiro iyo farshaxan ku gaar ah adiga tusaale ahaan hab markaasi xariijin ah isticmaal ama shay adiga aad fahmaysid isticmaal haddii waxa la sharxaya ay yihiin wax aan hadal lagu soo koobi karin ay yihiin haddii shaygan la sharxayo uu yahay wax aan hadal oo wax la qoraa lagu soo koobi karin uu yahay isticmaal farshaxan ya ama waxaad isticmaashaa sawiro markaa adiga gaar ku ah marka intaas isticmaal xilliga casharka uu socdo qodobada loo baahan yahay si markaasi notiskaas uu u qorto ardayga waxaa kamid ah fiiro gaar ah u yeelo su-aalaha ardayda kale waxaa jira arday qaar oo macalinka su-aalo badan weydiiya marka su-aalahaas oo kale waxaa lagaa rabaa in adigana aad fiiro gaar ah markaa u lahaatid kuwaaga iyo kuwa macalinka idin weydiinayo kuwa adiga oo ardaygii ah macalinka aad weydiinaysid iyo kuwa macalinka uu ku weydiiyo ama adinkoo ardaydii ah uu idin weydiiyo xilliga casharka waa in markaasi aad ka faa'iidaysataan oo aad si gaar ah fiiro gaar ah aad markaasi u lahaataan casharka kadib qodobada loogu baahan yahay ardayga waxaa kamid ah dib u akhri notiskii maanta aad soo qoratay waxyaabihii maanta aad soo qoraysid markaasi uu dhahay macalinka meeshan waa muhiim adiga aad qortay si gaar aad ugu qortay ama farshaxanadii aad adeegsatay guriga markaad imaado xoogaa naso kadib waxaa lagaa rabaa inaad dib u akhriso notiskii aad maanta soo qoratay inaad dib u akhriso ayaa lagaa rabaa cashirka kadib qodobada loogu baahan yahay ardayga waxaa kamid ah dib u qor oo dib u habeyn ku sameey notiskii adiga oo isku raacinaya siday isu leeyihiin yani qaabka ay isugu xigaan adoo isku raacinayo yani dib u muraajacay dib u akhri dib u fiirfiiri notiskii ama waxyaabihii adiga aad kasoo qortay ereyadii marka macalinka uu adeegsaday aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa daawashada muuqaalkan la soco muuqaalka xiga ee tababarkan